السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو ورئيس وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى وعن جعلها إن كجوابه سؤالوين أي سويديين قارك مدى الدمر كسيدة توسك وحرن يوتيوب جانل كيغا دكتور جوهر اوفيشيال. سؤالها سوحي كساب سنعيين ناسها الدمر كا وحكم إذا حرشة رجبت أما إن لغو سيحدو ناسوه ما أتكيان وحكولو كم إذا exercise ka ama jimicsiga badan ma adkayaan naasuhu ama waji hore ma u soo muujiyaan. waxaa kaloo ka mid ah ma jiraan creams iyo waxyaabo kale oo naasaha lagu adkayn karo. waxaa kaloo ka mid ah su'aalaha faysiliinta iyo waxyaabo kale oo la isku qasay naasaha ma lagu adkayn karaa. su'aalahan oo dhan waxaan ugu jawaabi doonaa muuqaalka gudihiisa. haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channelkayga Dr. Jawhari Official, fadlan subscribe saar, la wadaag asxaabtaada. 10,000 oo subscribe in aan gaaro waxaa iga dhiman wax yar, igu dhiirigeli oo dad badan gaarsii. muuqaalkan waxaa igu heliya saaxiibkay Dr. Faris oo qayb ka ah muuqaalka. marka hore maxay ciladani u yaqaanaan bahda caafimaadka? ciladan bahda caafimaadka waxay u yaqaanaan ptosis, waana isbedel ku imaada naasaha sida in ay jilcaan ama ay dhacaan. naasuhu waxay ka samaysan yihiin tubooyin loo yaqaano milky ducts, kuwaas oo qanjirada ka soo qaada caanaha waxayna keenaan ibti hore ee naaska. waxay kaloo naasuhu ka samaysan yihiin fibrous iyo adipose tissues. adipose tissuesku waa fatis ama barur, labaduba waxay ka qayb qaataan isbedelada ku yimaada naasaha markii ay jilcaan ama ay dhacaan. talow naasuhu murqo ma leeyihiin? naasaha ma lahan wax murqa ah. waxaan u gudbaynaa maxaa keena naasaha in ay jilcaan ama ay dhacaan. caadi ahaan naasuhu inay dhacaan ama ay jilcaan waa xaalad dabiici ah, waxayna ka mid tahay isbedelada ku yimaada jirka. laakiin waxaa jira waxyaabo keena in naasuhu ay xilli hore jilcaan ama ay dhacaan. waxyaabaha keena in naasuhu xilli hore jilcaan ama ay dhacaan waxaa ka mid ah isticmaalka ama cabidda muqaadaraadka sida shiishada iyo sigaarka. waxay burburinayaan borotiinka loo yaqaano elastin oo xoojiya maqaarka ama haragga naasaha. sidoo kale waxaa keeni kara in naasuhu xilli hore jilcaan ama dhacaan isbedel ku yimaada jirka, sida in qofka si dhaqsile ku cayilo ama ku dhuubto. jimicsiga badan sida orodka iyo rucleynta waxay keenaan inay naasuhu eeganu ay jilcaan. sidoo kale waxaa ka mid ah da'da. haweenaydu markii ay gaarto da'da dhalmagoynta ama menopause-ka waxaa ku dhacayo isbedelo dhanka hormooniska ah. isbedeladaasi waxay keenayaan in naasuhu ay jilcaan ama ay dhacaan. tirada uurka ama haweenayda inay qaado uur isxiga waxay ka qayb qaadanayaan inay naasuhu jilcaan. maxaa yeelay mar walba oo haweenayda uur ay qaado waxaa ziyaadaya ama jirkeeda ku badanaya ama la soo deynaya estrogen iyo progesterone. hormoonadani waxay kicinayaan qanjirka caanaha soo saaro. waxaa su'aal isweydiin mudan, ma jiraan habab naaska lagu adkeeyo ama saro lagu qaadi karo? sidaad ku soo aragteen muuqaalka qaybihiisii hore, naasuhu in ay jilcaan ama ay dhacaan ma ahan cudur ee waa xaalad dabiici ah oo dumar walbaba soo maraysa. ma jiraan habab kale oo lagu adkayn karo naasaha oo aan ahayn qaliin? ma jiro habab kale oo naasaha lagu adkayn karo oo aan ahayn qaliin. waxaa lagu sameynayaa qaliin, breast lifting and breast augmentation. waxaa la gelinayaa cinjir oo sare loogu qaadayo naasaha. ma jiro waxyaabo kale oo naasaha lagu adkayn karo. waxaa jira dumar badan oo aaminsan in rajabeetada oo si joogto ah loo xirto ama lagu seexdo in naasuhu adkeeyaan. laakiin arrinkaasi waxaan leenahay taas waa fikrad qaldan waaye. haddii aad habeenka ku seexatid waxaa laga yaabaa inay cillado ama dhibaatooyin kale ay ku keenaan. waxaa jira dumar badan oo sanadadii u dambeeyay bilaabay gym oo aaminsan in exercise-ka ama jimicsiga ay adkeeyaan naasuhu. laakiin arrinkaasi waxaan leenahay jimicsigu naasuhu ma adkeyn kara. orodka iyo rucleynta way kaga sii darayaan, way sii jilcayaan. maxaa yeelay naasuhu ma lahan murqa ma lahan. qofka markuu gym sameynayo ama jirkiisu u dhisayo waxa kaliya uu dhisayo waa murqaha waay.
marka naasuhu de murqa ma lahan wax taagaya ama wax kala dhisaya ma leh marka jimicsiga waxba mu usoo kordhinay orodka iyo ruclayntu uu kaaga sii daraya fadlan ka taxadir caafimaadkaada oo iska ilaali wax walba oo nafsadaada khatar ku keeni kara haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo boqoto youtube channelkayga Dr. Jawhari official fadlan subscribe saar la wadaag asxaabtaada oo ku share garay 10,000 oo subscribe waxa iga dhiman wax yar waxaan ku heli karaa waan ku gaari karaa adinka dhiirigelinteena aad u maasantihiin waa inoo muuqaal dambe